kulanti wanaagsan dawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadaan maanta barnaamijkan ku soo qaadi doonana waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay taliyihii Niza ee gobolka Gedo Bakaal Kooke oo qarax lagu dilay iyo shaki xoogan oo ka dhashay qaabka loo qaarijiyay taliyahan maadaama uu khilaaf culus kala dhaxeeyay gudoomiyaha gobolkaasi Gedo haddaba sidee ayuu u dhacay dilkiisa xogo ayaanu idinkaga soo gudbin doonaa xilli ay xiisadii ka taagan tahay gobolkaasi Gedo faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya dab xoogan oo ka kacay baqaar lagu kaydiyo hubka oo ku dhex yeelay xarunta hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho iyo mid kamid ah askartii Niza oo ku geeriyootay dabkaasi miyuu ka hadlay arrintan taliyaha Niza Mahad Salaad waanu idin soo gudbin doonaa wararka kale waxaa kamid ah gudoomiyihii hore ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliime Yarey oo dagaal siyaasadeed diyaar u ah kadib markii madaxa looga dhigay guddiga doorashooyinka maamulka Galmudug iyo qoorqoor oo ka dalbaday Xaliime Yarey inay mar kale xukunka Galmudug ku soo celiso iyo Mareykanka oo si toos ah u soo farageliyay xiisadda siyaasadeed ee maamulka Koonfur Galbeed xilli uu ku amray gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Madoobe in uu degdeg ku tago magaalada Baydhabo isla markaana uu xal waara dhex dhigo madaxweyne Lafta Gareen iyo siyaasiyiinta ka soo horjeeda ee diidan damaciisa muddo kororsiga qodobadaasi ayaanu ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah waana Jimco sagaalka bisha 12aad ee December sanada 2022 barnaamijkan si shargareeya oo dhammaan gaarsiiya saaxiibada kale ee idinku jira baraha bulshada aad iyo aad u mahadsantihiin aynu ku bilowno wararkeena wararka saaka aynu ka helayno ee gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in la dilay isla markaana qarax lagu qaarijay gudoomi waa taliyihii hay'adda Niza ee gobolkaasi Gedo Bakaal Kooke macluumaadyada aynu helayno ayaa waxay tilmaamayaan in taliyihii Niza ee gobolka Gedo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Aadan oo loo yaqaan Bakaal Kooke in lagu qarxiyay tuulada la yiraahdo Suul Alle oo ku dhow degmada Luuq ee isla gobolkaasi Gedo sida ay xaqiijiyeen mas'uuliyiinta ka tirsan maamulkaasi ee Gedo ama maamulka gobolka Gedo taliye Bakaal Kooke ayaa la sheegay in qaraxa loogu xiray gaarigiisa xilli uu marayay tuulada Suul Alle oo kaliya 5 kiiloomitir u jirta degmada Luuq ee gobolkaasi Gedo taliyaha la dilay ee Bakaal Kooke ayaa ahaa taliyihii gacanta ku hayay ammaanka gobolka Gedo labadii sano ee la soo dhaafay waxa uu ahaa nin awood badan oo maamulka Jubbaland muddo dheer u diidanaa inuu ka howlgalo gobolka Gedo taa badalkeeda dawladda dhexe ayuu toos uga amar qaadan jiray maamulkiisa waxaana lagu xasuustaa wada shaqayntii uu la lahaa madaxdii hore ee Soomaaliya sida madaxweyne Farmaajo iyo taliyihii hore ee Niza Fahad Yaasiin Xaaji Daahir Bakaal Kooke ayaa markaa dhowaan waxa la sheegay in khilaaf ba'an uu kala dhaxeeyay gudoomiyaha gobolka Gedo Canjeex ayna si weyn isugu hayeen arrimo la xiriira canshuuro laga qaadayay gobolkaasi Gedo balse waxa la sheegay in mar dambe heshiis ay kala dhex dhigtay dawladda Itoobiya kadib markii ay doolo ku kulansiisay labada dhinac isla markaana heshiis qaateen laba xaqiijin karo in dilkiisa uu salka ku hayo khilaafkii kala dhaxeeyay gudoomiyaha gobolka Gedo balse waxa la sheegay in arrintan aan la isaga hari doonin oo baaritaano lagu sameyn doono in al-shabaab halkaasi ay qaraxiyo ka fuliyaan ayaa waxa la tilmaamay inay tahay mid naadir ah isla markaana shaki xoogan ayaa hadda ka jira qaabka loo dilay taliyahan waxaana xiisadii laga soo sheegaya gobolkaasi Gedo oo aad markaasi looga taageersanaa Bakaal Kooke waxaana suurtagal ah in markaasi ay arrintaani sababto isku dhacyo marka dagaal ah oo laga dareemo gobolkaasi Gedo hagaag dhinaca kale wararka Niza haddii aynu ku sii socono waxa la sheegay in dab uu ka kacay baqaar hubka lagu kaydiyo oo ku yaala xarunta Niza ee Habar Qadiijo ee magaalada Muqdisho wararku waxa ay sheegayaan in uu dabkan oo ahaa mid xoogan qabsaday baqaaradii hubka ee xarunta weyn ee hay'adda Niza ee ku taala magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Shibis dabka ayaa dhaliyay khasaaro xoog leh sida ay sheegeen xubno ku sugan aagga xarunta ay ku taalo waxaana wararku tilmaameen in dabka uu markaasi sababay geerida mid kamid ah askarta hay'adda Niza ee ku sugnayd xarunta
khasaaraha dabka uu dhaliyay ayaa waxa uu ahaa mid culus, wuxuuna baabi'iyey kaydkii hubka iyo agabka hay-adda nisa oo ah xarun si weyn loo ilaaliyo, lamana oga sababta dhalisay dabka iyo xaqiiqda khasaaraha uu dhaliyay intaba. waa markii ugu horeysay ee uu dab qabsado xarun ay leedahay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ee nisa. taliyaha hay-addaas Mahad Salaad weli wax wara kama uusan soo saarin dabka la sheegay in uu ka kacay xarunta uu hadda maamulo, waana xarunta markaasi laga ilaaliyo ee amniga ee dalka, sidoo kalena ah meesha markaasi sirdoonka Soomaaliya uu xogaha markaasi ku kaydiyo. waa hagaag weli waxaad la socotaan barnaamijkeena wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya saaxiibayaal. iminkana aynu eegno wararka arrimaha siyaasadda markaasi la xiriira. waxaa lagu soo waramayaa in markaa madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor uu u diyaar garoobay sidii uu mar kale xukunka maamulka Galmudug uu ugu soo noqon lahaa. waxa uuna arrintaasi ka dalbaday Xaliimo Yarey oo uu ka dhigay markaasi madaxa guddiga doorashooyinka ee maamulka Galmudug. gudoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee Soomaaliya ayaa waxa ay noqotay gudoomiyaha guddiga doorashada ee maamul goboleedka ee Galmudug, sida xogihii ugu dambeeyay aynu ku helayno kadib markii ay xubin ka noqotay guddiga doorashada ee maamulka Galmudug. kulan ay xalayto yeesheen golaha wasiirada ee maamulka Galmudug isla markaana uu shir gudoominayay madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Cali Daahir Ciid ayaa waxaa lagu ansixiyay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Galmudug. xubnaha guddiga waxay ka kooban yihiin 7 xubnood, waxaana ka mid ah Xaliimo Ismaaciil oo loo yaqaano Xaliimo Yarey oo dhowaan guddigii heer federaal ee ay ka tirsaneed uu kala diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. xubnaha guddiga ayaa waxay kala yihiin Xaliimo Yarey, Dr. Yaasiin Cabdi Jaamac, Xirsi Yuusuf Barre, Khaliif Axmed Gaabow, Amiira Daahir Maxamed, Maxamed Cabdi Shardi iyo Cabdirashiid Cabdiraxmaan Axmed. guddigan ayaa ka shaqayn doona qabashada doorashada maamulka Galmudug, waxaana markaasi Axmed Qoorqoor raahday uu doonaya in mar kale uu talada ku soo laabto. Xaliimo Yarey oo markaasi hadda la fahamsan yahay in ay nacayb u qabto madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa ay isku dayi doontaa inay markaasi dagaal siyaasadeed la gasho madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale kooxdiisa Villa Soomaaliya joogta. wararka qaar waxa ay sheegayaanba in markaa uu jiro isfaham adag oo dhex maray Xaliimo Yarey iyo sidoo kale ninka la yiraahdo Axmed Qoorqoor. qaybaha dambe ayaan saaxiibayaal sii gaaraynaa ugu dambeyntiina Mareykanka waxa uu si toos ah markaa u soo fargeliyay xiisadda siyaasadeed ee doorashada ka dhalatay ee ka taagan marka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, isagoo oo hadda amray gudoomiye Aadan Madoobe gudoomiyaha baarlamaanka inuu halkaasi degdeg ku gaaro isla markaana xiisadaas u xalliyo. gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa waxa uu kulan la qaatay shalayto danjiraha dalka Mareykanka ee Soomaaliya Larry Andre. danjiraha Mareykanka ee Soomaaliya ayaa sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay waxa uu gudoomiye Sheekh Aadan Madoobe markaa kala hadlay sida ay dowladda Soomaaliya uga go'an tahay la shaqaynta beesha caalamka. safiirka waxa uu dhinac kale soo hadal qaaday arrimaha ku saabsan taageerada dib u heshiisiinta ee gudoomiyaha baarlamaanka uu ku dhawaaqay isla markaana dhowaan loo madalsan yahay in ay ka bilaaban doonto magaalada Baydhabo ee caasimadda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. sidoo kale ambaasadorkan ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ay si buuxda u taageeri doonto horumarinta golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Aadan Madoobe oo gabagabada kulanka markaasi hadlay ayaa waxa uu sheegay in uu aad u bogaadinayo taageerada dowladda Mareykanka. waxa markaa wada hadalladan ay ku soo beegmayaan ay yeesheen safiirka Mareykanka iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya
xilli madaxweyne cabdixasiin laftagareen uu markaasi ka degay magaalada garowe halkaas oo la filayo inuu shir kula yeesho dhigiisa Saciid Dani waxaana aadan madoobe isaguna doonaya in uu wada hadallo iyo markaasi dib heshiisiin ka bilaabo koonfur galbeed isla markaana uu dejiyo xiisada halkaasi ka taagan ee u dhaxaysa laftagareen iyo sidoo kale siyaasiyiinta ka soo horjeeda qodobkaas ayaa ugu dambeeyay warkana intaanu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo